السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان إذن كسو هادلينا channel كيني كورسان ugu baxay luqada ingiriiska caawa waxaan muuqaalan soo dhigaynaa oo ku saabsan wiil iyo gabar sheekaysanaya. waxaa la yiraahdaa face to face meeting, kulan waji ka waji loo kulmayo. samqal wanaagsan noo share gareeya dadka nagu cusub, sidoo kale si meel kasta ay joogaan ay u gaaraan walaalahayna ku nool dibadda iyo gudahaba. sidoo kale subscribe hanaga ilowna subscribe-ka, sidoo kale noo saara like-tan hanaga ilowna ilin lagtoo dhiirgelinteena mahadsanid dhammaantiin. bismillaahi raxmaani raxiim. most of the students in our class, most badankooda of the students ardayda badankoodu in our class oo fasalkeena dhigata boontii waxay kugu tilmaamaan daataasi you are inaad tahay the lion libaaxi of the class ee fasalka. but today laakiin maanta waxaan rabaa to show you inaan ku tusiyo that you are inaad tahay the cat bisada of the class ee fasalka. so ha ahaatee, are you ready for that issue? arrintaas diyaar ma u tahay? are you ready? diyaar ma u tahay for that issue? arrintaas diyaar ma u tahay? first warranty, look at me well, si fiican ii fiiri, si fiican ii eg. whom do you think that I am? yaad imidaysaa waraha inaan ahay anigu? gabadhaad dhehayso first warranty, look at me well, si fiican ii fiiri. whom do you think that I am? yaad imidaysaa inaan ahay aniga? don't you know that? ma ogid miyaa ama taqaanid miyaa? I have inaan leeyahay 3 years of experience in English language. luqada Englishka 3 sano oo khibrad inaan u leeyahay ma ogid miyaa? or amen, you are mistaking me someone else. am waxaad igu qaldamaysaa qof kale. maasha allah, gabadha daadse muujinaysa arag erada kukula dhehayso wiilkaa yiri you are too wrong guy, you are too wrong. aad ayaad u qaldan tahay guy, wiilio adiga aad u qaldan tahay. I have 2 eyes, waxaan leeyahay tiri 2 indhood, which Allah kaasoo ilaahay subxaana wa tacaala provided me isiiyey to classify inaan ku kala soo saaro tinki shayaalo and people iyo dadka. and I know waan ogahay what you are waxaa tahay waa aqaana aniga. but laakiin to praise yourself inaad naftaada ammaanto, ama to praise yourself naftaada inaad ammaanto is foolishness, waa nacasnimo, doqonnimo. there is waxaa jirta English proverb, maamaha English, which says oo dhehaysa he who praises himself, ninkii naftiisa ammaana ama ninkii isfaanshiya is like waxa lamid tahay a goat, waa ari, which socket kaasoo isnugtay itself nafsaanteeda. nin isfaanshiya meeshaan ka dhehayna waa ri isnugtay. there is waxaa jira English proverb, maamaha Englishaa jirta, which says oo dhehaysa he who praises, ninkii amaana himself nafsadiisa is like waxa lamid tahay a goat, waa ari, which socket kaasoo isnugtay itself nafta ahaanteeda. I see, waan u jeedaa your eyes, indhahaada, but laakiin they appear, waxay ila muuqdaan aniga to be inay yihiin artificial, mid oo la sameeyey oo lagu sameeyey bini'aadam sameeyey. because of maxaa yeelay when I meet, markaan la kulmayo with my classmates, saaxiibayaasheeda fasalka, normal caadi ahaan they sweet, caadi ahaan iyaga way dhididaan, and hesitate, way shegshegaan to share, markay ila qaybsanayaan dialogue with me. ardayda qaarkooda markay ila sheekaysanayaan way shegshegaan, kuwa kalena way dhididaan cabsi awood lemo. so where did you borrow, halkee baad kusoo iibsatay this bravery, eryaalkan geesinimada ah today? halkee kasoo iibsatay? halkee kasoo amaansatay? halkee baad kasoo amaansatay? soo ahaatee where did you borrow, halkee baad kasoo amaatay this bravery words today? ama tonight waad dhihi kartaa eryaashan aad geesinimadu ah, halkee baad kasoo amaahatay? waxay dhahday gabadhii don't imitate, ha igu daysanin what you are not. don't imitate, ha iska yeelin. don't imitate, ha iska dhigin what you are not, waxaadan ahayn. I am a person, waxaan qof who knows oo yaqaana much more, wax aad u badan about ku saabsan your background taariikh nololeedkaada aad iyo aad oo kusay dhahday. in reality xaqiiqadu tahayna you are an infant, waxaa tahay caruur. you are waxaa tahay
infant carruur ayaa tahay ama cunug according markaan raaco to me aniga idul igay to me aniga because of maxaa yeelay I was present diyaar ayaanu ahaa I was waxaan ahaa present xaadir ayaanu ahaa at your birthday maalinta dhalanaysa adiga xaadir baan ahaa and I'm very remember aad ayaan u xasuustaa your age da'daada but laakiin I'm extremely delightful that taas aad baan ugu faraxsanahay si xoog leh ayaan ugu faraxsanahay I have taught you inaan ku baray adiga the best way habka u wanaagsan you can deal aad la sheekaysan karto with the old people dadka oo odayaasha ah like me sidoo kale so go to your bed sariirtaada aad don't imitate ha iska dhigin what you are not waxaadan ahayn I am a person waxaan ahay qof who knows oo yaqaana much more wax aad u badan abbaada ku saabsan your background taariikh nololeedkaada in reality sida xaqiiqadu tahayna you are an infant waxaa tahay cunug ama caruur according to me anuu eegay taas because of maxaa yeelay I was present xaadir ayaan ahaa ama waan joogay at your birthday maalintii dhalashaada adiga lagu dhalay waan joogay and I'm very remember aad iyo aad u xasuustaa your age da'daada u xasuustaa but laakiin I'm extremely si xoog leh ayaan delightful that aan ugu faraxsanahay I have taught you inaan kusoo baray the best way habka ugu wanaagsan you can deal with aad la sheekaysan karto the older people dadka waaweyn like me sidoo kale ah so go to your bed aad sariirtaada waryahan soo seexo sariirtaada aad iska seexo caruura teewa marka casharka meesha nooga dhammaaday sidoo kale bagga aan ku leenahay follow noo saara Facebook aan ku leenahay follow noo saara TikTokada soo kale waan ku leenahay asagana saas ula socda waan ku leenahay meesha rabta raac maasha Allah Facebookana soo kale halkaasaan ugu soo baxay halkaasaan kusoo gabagabeynaya caawa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wixii comments aan u haysaana noo soo dhiga bini aadan aan nahay wax waa la khaldi karaa commentiga aan iskula xiriirno insha Allah intii hawada aan ku maqleen naga raal ahaada xoogo cilada jirtay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu